maalmaha ciidaha dadweynuhu waa kuwa u dalxiis taga goobaha ilqabeentiga ee dalxiiska ku wacan magaalooyinka Berbera iyo Sheekh ayaa kamid ah deegaanada ay u dalxiis tagaan muwaadiniinta reer Somaliland maalmaha ciidaha iyo sidoo kale fasaxyada kastoo ay jiraan caqabado ka hor yimaada dalxiisayaashaasi oo ay kamid yihiin shilal iyo badda oo laqda dhalinyarada telefishinka caalamiga ee Ariel TV ayaa u qalab qaatay sidoo wax uga ogaan lahaa goobaha dalxiisayaasha ayaa waxaanu gaarnay deegaanada Sheekh iyo Berbera halkani waa kantaroolka galbeed ee magaalada Burco waxa taagan gaadiid badan oo sida dhalinyaro u dalxiis tagaysa deegaanada Sheekh iyo Berbera taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer Cabdi Cali Xayd oo aan kula kulmay kantaroolka galbeed ee magaalada Burco ayaa Ariel TV ugu warbixiyay sida ay kaamniyahan uga qayb qaadanayaan taliya marka hore ku soo dhawow telefishinka Ariel waan salaamayaa telefishinka Ariel halkan imika waxaan u taaganahay dhalinyarada dalxiisayaasha ah ee ku socda mataqaanaa Berbera si ay ugu soo dabaashaan iyadoo in ognahay waqti xagaa ee lagu jiro oo ay baddu kacsan tahay oo dhibaato fara badan ay ka dhacdo had iyo jeer sida aad u ogtihiinba halkan waxaan ku kala shaandhaynaynaa dadka yaryar ee magaratada ah ee badda isku guraya oo aanu ka joojinayno iyo dadkii waaweyn wixii dad waaweynna waanu sii daynaynaa macquul ah wixii dhalinyaro ah ee badda ku socdana waanu celinaynaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil oo aan gaaray gaar ahaan Batalaale indhahaygu waxay qabanayeen dalxiisayaal tiro badan dalxiisayaashaasi ku sugnaa badda Batalaale ee magaalada Berbera oo aan qaarkood la sheekaystay ayaa dareenkoodu ahaa sida tan Cabdirashiid Maxamed Xuseen Balaalo iyo nantayda oo barwaaqo halka magaalada ka soo dalxiistaan waxaan ka mid walahay magaalada Hargeysa xaafadda Jigjigeer baan ka mid والله شوي بربرة أدوي في عيب بدنا واحد يقدم بيصير لابد يكون يشنتي. أيوة صالح أحمد صالح. صالح واحد كم تهدى الحين ياشا ما تكسر جنب بربرة بالكورن درك يشوي مقالة بربرة يبدي بطل عليه. ما شاء الله دوّا دركتايو نمعض سوق هاي دعضي يو دلحيس كونكسن يو الليدة حبينا كده عياد بداركتها وحويا إلا هجاتشيو أو سيدان سيكو قروح بدن أي دولة دوجا شو. جينا ما توا ما نتيلا بعد عيدا ما تصدحنا سيدان سيكو بدن بالله يمنيا مركا ما حنا لا دلنيرة كسو يمنا سمركا هركت حديران بدل هذا قرنين وخاصة نيكولو رير بربراينا تراضوا صاحب الراعي عنده ماشي تستس لكن خطرت ذي لا هذا أنكل سوني دي بدنا عن دباشنا قرنين هذا يسكج شو وهذا وحكون قطو أنا عندنا مسؤولية هذا دوتو يدا كسو بعثتي سيخل دنا دوقتي هذا تراضوا بدي يسكتي ماتو هذا يدا هذا كجنا حيسو اللي بنا يكون قطو جيري لما فلان ومتلقفين اللي شيء يشرو اللي بنا دلنيرة تحسن وكلا دارم يعني مقعد والله المقعد أحمد زرحان شاع مقعد واحد زرحان شاع أحمد وهكذا كصوت وعكصوت الحس قبل كتقدر قرهان حفظ كيني ذا بالكورن شوي كمان تي مقالة بربرة والله هي ود جاية هي بدوان ولا ضبلني بالشدة ولا قاعد ويكوشرتها من قبل ولا بيكتمي واحد لا حسين علي سعيد واحد خايم مقالة هرقيسة شوي قبل بربرة أدبو نكسي دلحيسيا شوي أدبو شوغان والله مقالة الوحي وباحنتها هي إن دب حبين قسم أي حاجة بدأ أو سدا بطل على أقل لها جاتشيو. وليدا وديال وحنا كوجد شلنا وربحتي قصة بسنة الحيسكا يعني كد يارني مقالوين كالشيخ يبربرا إمك وحنا قصة كنا هي مقالة بربرا كرهنا حبت بطل على إمك وميت كم من الحيسيا شايلين عيقة تاجن الوحنا ويديدنا درين كيسا يعني مركو هنا مقعقة. مركو هنا مقعقة وباش السلمان مركو هنا مقعقة وباش السلمان قح أنا ودقن قوك الساحل بوق شوكيمي بطل على بيتش تاسو سفي عنه نومر تجلسي waxaan ka yimi gobolka Togdheer waxaan maxay tolo u yimi halkan dalxiiska xeebta Berbera waxaanan maxay tolo ka sheegaya halkan Ariel TV maxay tolo dadka ay ka imanaya meelahaas gobolada inay iska ilaaliyaan khatarta xeebta maalmaha ciidaha magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa uu soo dalxiis taga boqolaal muwaadiniin reer Somaliland ah si ay ugu soo badaashaan ama ugu soo jawi badashaan badda Batalaale ee magaalada Berbera Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga Ariel xeebta Batalaale ee magaalada Berbera